السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى الصومالية دوا سلامية سلام كدب ما أنت وحن إذين سيدا وردي له وأن هو إنوسن ديهنا فرحات جلندون هسي هاتي هراء لو يرون تورجع كمان عيسو شركي دول goboleedyada iyo dawladda federaalka kaas oo runtii ku dhamaaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna warkaasi wuxuu ku saabsan yahay shirkii madaxda Soomaalida uga socday magaalada Garowe oo si rasmi ah u fashilmay isla markaana burburay iyadoo madaxda halka ku shirsaneed ay maanta bilaabeen inay ka kala huleelaan oo nin kasta meeshii hore uga yimi dib ugu laabto barnaamijka waxa ku eegaya sababaha keenay shirku inuu fashilmo iyo qodobada ugu adag ee labada dhinac isku mari waayeen intaan barnaamijka u gudagelin waa mashruuc shirku ku reebay ninkii Shiina Culaha oo si xushmad leh kaaga codsanaya inaad video kan sii share garayso oo la wadaagto asxaabtaada inaad channelka ku leeyahay YouTube Shiina Culay subscribe garayso iyo inaad like iyo comment-ga soo badiso aan ku bilaabo warkeena shirkii ka socday magaalada Garowe ee u dhaxeeyay madaxda maamul goboleedyada oo dhinaca iyo dawladda federaalka oo uu hogaaminayo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha una weheliyay gudoomiyaha gobolka Banaadir shirkaas oo muddo 10 cisho ka socday magaalada Garowe isla markaana ahaa shirkii ugu muddada dheeraa tan iyo muddooyinkii ugu dambeeyay shirarkii lagu qabanayay dalka gudihiisa shirkaas waa fashilmay waa lagu kala dhaqaaqay waana lagu kala huleelay qolada kale ay ku eedeynaysaa inuu fashilmay dawladda federaalka marka la hadasho saraakiisha filla Soomaaliya ama xafiiska ra'iisul wasaaraha ama wasiiradu waxay ku sheegayaan in maamul goboleedyadu ay eedan leeyihiin inuu shirkaas fashilmo waxay ku eedeynayaan maamul goboleedyadu inay yihiin agency ama la wajiilayaan ay ku shaqaysanayaan dalal sheeye taasina ay keentay inuu shirku fashilmay bacdaba aysan u adeegin danta ummadda Soomaaliyeed ee yihiin dad waxa weeye lacag lagu soo shubtay oo dalal sheeye u adeegaya halka madaxda maamul goboleedyadu ay ku sheegayaan in shirka uu fashilkiisa ay mas'uul ka tahay dawladda federaalku isla markaasna ay ka garaabi weeday tabashooyinkoodii iyo qodobadii meesha la yimi waxay si rasmi ah ugu eedeynayaan in dawladdu ay hareer martay dastuurkii iyo waxyaabihii Soomaaliya ku heshiisay oo ay sharciyo muhiim ah oo ay ahayd inay kala tashadaan maamul goboleedyada ay iyadoo aan waxba ka weydiin ay baarlamaanka horgeysay sida sharciga qaybsiga khayraadka ama ka bedroolka markaan niraahno kaleeto iyo sida sharciga doorashooyinka madaxda maamul goboleedyadu waxay ku doodayaan dawladda federaalka inay ka codsadeen sharciyada ay xukuumaddu ansixisay oo baarlamaanka hor yaala in dib loo soo celiyo oo iyaga laga tashado hase ahaatee dawladdu ay arinta ka garaabi weeday arinta ugu muhiimsan oo la isku hayaa waxa weeye waa faragelinta sida ay maamul goboleedyadu ku doodayaan dawladda federaalku ay ku hayso maamulka Galmudug madaxweyne Axmed Xaaf dhowrkii bariyo ugu horeysay isaga iyo dawladda federaalka ay xaaladdu ka taagnayd iyaga maxaa ku raadabay ka tafnayd iyaga la soo jiidayay waxa uu ka tabanayay waxa uu lahaa qalaasaha Galmudug hareeyay nabadgelyo darrada deganaansho la'aanta siyaasad xumada Galmudug maxaa ku raadabay ka taagan waa mid ay ka dambayso oo soo mareegtay dawladda federaalka waxa uu sheegay reer Galmudug inaysan wax maana ka dhaxayn balse dawladdu ay tahay tan dhaqaalaha badan ku bixinaysa sidii maamulka loo majaxaabin lahaa loo kala diri lahaa iyadoo danta ay ka leedahay ay tahay sidii doorashooyin aan xilligeedii la gaarin ay intay Galmudug uga qabato ay madaxweyne Xaaf halka uga saarto oo madaxweyne maqaarsaar oo iyada danaheeda u adeega ay keensato si ay ugu gasho doorashada soo socota ee 2021 iyadoo arintu halka taagan tahay oo arinta Xaaf iyo dawladda federaalka waxa weeye la isu soo dhaweynayo oo dawladda federaalku xataa ay tiri maxaa ku raahdaa u soo bandhigtay muddo hal sano ah Xaaf oo ay tiri doorashooyinka aan qorsheynay wasaaradda arrimaha gudaha ku dhawaaqday 3 bilood ka bacdi inay dhici doonaan dib baan u dhigaynaa Xaaf oo muddo hal sano ah halkaaga ku galgulo iska sii joog iyadoo sidaa tiri oo xogaa muddo in isu soo dhawaansho jiro walow Xaaf aanu ka tanaasulin arintiisa sheegashadiisa ahayd in 2 sano u harsan tahay oo waxa la doortay ay ahayd 4 sano oo uu soo ahayn madaxweyne ku xigeen madaxweyne dhaxlay uu yahay nin cusub oo la doortay ayaa waxa soo shaaca baxday arintii Jubbaland oo ahayd arintii ugu dambeysay ee shirka jilbaha dhulka uu dhufatay oo keentay inuu fashilmo arintaas waxay ahayd nin musharax ah oo ku dhawaaqay inuu u sharaxay madaxtinimada Jubbaland oo lagu magacaabo Seeraar ayaa maalin dhow wuxuu ka duulay Durham magaalada Muqdisho wuxuuna ka digay Kismaayo
ninkaas haba ka degay magaalada Kismaayo markuu ka degay waxa weeye markiisii hore ciidan uu soo urursaday beeshiisa sida la sheegayo airportkii bay xoog soo galeen waxay diideen nidaamkii la marin jiray dadka soo dego inuu maro sida shandadiisa in la baaro in maxaa ku raahday nidaamkii adigu bay diideen xoog bay uga baxeen halkaana khasaaraha ka dhashay dhowr qof baa ku dhaawacmay dagaal baana loo soo adeegsaday ilaa iyo haddana ninkaasi Muqdisho wuxuu ku sugan yahay Kismaayo ciidan urursigu ku jira Axmed madaxweynaha maxaa ku raahday Jubbaland wuxuu si rasmi ah ugu eedeeyay dowladda federaalka ninkaas inay iyadu soo dirtay oo yahay dhagax ay Muqdisho ka soo tuurtay oo ay doonayso maamulka inay ku caqaladayso isla markaana doorashada Jubbaland la filayo inay ka dhacdo inay maxaa ku raahday doonayso inay ku wiiqdo hanaankii ay doorashadaas u dhici lahayd isla markaana gacanta maamulka Jubbaland ay ka saarto awoodii ay doorashada ku qaban lahayd oo doorashada ay noqoto mid maxaa ku raahday iska banaayaal oo nin kasta la roori karo saasu maxaa ku raahday ku eedeeyay shirkana waa ka baxay arinta ugu yaabka badan oo Garowe laga soo sheegay waxay ahayd Axmed Madoobe markii uu doorashada shirka ka baxay si walba waa la yeelay cid walba waa loo diray waa lagu qalcin waayay inuu shirka ku soo laabto waxaan aad ula yaabay salaadii jimcaha baalnimadii shalay waxa lagu tukaday baa la yiri masaajid madaxtooyada ku dhex yaala Garowe oo lagu magacaabo masaajidka shuhudada Axmed Madoobe wuxuu diiday inuu saf kula tukado madaxda maxaa ku raahdaa isaga iyo xaaf madaxda Soomaalida madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre waxay ku tukadeen Axmed Madoobe iyo xaaf safta me baa la yiri markii salaad salaam calaykum la yirina nin walbaana hore buu sii beedoday waxay ku tusaysaa sida Soomaalidu macnaha madaxda halka ku shirsanay xaaladoodu u cakirantay oo meel fog ay maxaa ku raahdaa u kala gaartay waxaan rabaa inaan barnaamijkan ku eego horta shirka fashilkiisa yaa mas'uuliyadeeda leh arintaas markaan eegno waxaan horta u baahanahay shirarkii nooca kala mid ahaa ee hore Soomaaliya uga dhici jiray natiijadii ay ku soo dhamaan jireen maxay ahayd hore tan iyo intii ku meel gaarka ahayd xilligii Sheekh Shariif shirar kala mid ah oo Garowe 1 leh oo Garowe 2 leh oo kii Muqdisho la isugu tagay leh oo waqtigii ku meel gaarka looga baxay baa waxa isugu iman jiray madaxda maamul goboleedyada waliba xilliga xataa maamul goboleedyada badan ma dhisnay Puntland iyo Galmudug baa dhisnaa iyo hoggaanka dowladda federaalka oo xilliga ku meel gaar ahayd shirar badan ilaa 5 shir markii la galay waa tii doorashada la qabtay waa tii dastuur ku meel gaar oo qabiil la sameeyay waa tii markii ugu horeysay Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh lagu doortay taasina ay keentay in Soomaalida ku meel gaarkii laga saaro oo dowladda ay ka dhalato shirarka la isugu imanayay marka shirarka Soomaalida isugu imanaysay ee hoggaankii Soomaalida isugu imanayay waxa weeye waa la kala aragti duwana inta waa laga kala tabari liitay xaaladdu sida waa ka xumeed mar walba waa la heshiin jiray حتى طبعا عشان ما في ديجري صدق حفر شم عشو وحنا حسوستا شركي Garowe 1 markuu ka dhacay magaalada Garowe maamulka galmudug baa shirka ka baxay waa qaadaceen laba bari bay ka maqnaayeen waxa arinta ka shaqeeyay oo gurigooda ugu tagay oo soo dhiraandhiriyay oo xaaladda meel dhexe maxaa keenay oo miiska dib ugu soo celiyay oo maxaa ku raahdaa taasina ay keentay in lagu guuleysto oo heshiis shirka laga gaaro oo waxa ku yiraahdo wanaag uu ku soo dhamaado guddoomiyihii baarlamaanka ee xilliga Shariif Xasan ba arinta aad uga shaqeeyay Garowe joog aad arinta uga shaqeeyay maxaa ku raahdaa waftiga galmudug waxa ka xasuustaa caalino madaxweynaha iyo Cabdi Qaybdiid oo xubin ka ahaa marka mar walba khilaafaadku waa dhici jiray laakiin dadka waa la soo jiidi jiray meel dhexaana la isugu iman jiray dowladda ama madaxda sare waa tanaasuli jireen madaxda maamul goboleedyaduna waa soo tanaasuli jireen cid kasta oo hoggaanka Soomaaliyeedna waa la isugu iman jiray ka marka laga yimaado tii hadda Xasan Sheekh waxa weeye geed socodkii maxaa ku raahdaa kala guurka ahaa ee looga maxaa ku raahdaa farmaajo lagu dooranayay madal baa la sameeyay madaxda maamul goboleedyadu ay ku jirto maxaa ku raahdaa hoggaamiyaasha Soomaalidu ay ku jirto xilliga marka maamul goboleedyo badan baa dhisnaa waxa dhisnaa ilaahooda beelka beelin Hirshabeelle dhisnaa waxa dhisnaa Galmudug Puntland Jubbaland maamul goboleedyada koonfur galbeed maamul goboleedyadu dhan waa dhisnaayeen madal baa la sameeyay madasha waxa loo sameeyay waxay ahayd in dadku talawadaad noqdo xilliga xataa ku meel gaar lama ahayn waxa weeye meesha Farmaajo fadhiyo baxsan fadhiyay madal baa la sameeyay Garowe la isugu imanayay Kismaayo la isugu tagay Baydhabo la isugu tagay meel walba la isugu tagay ilaa 20 shir ku dhawaad baa la galay waxyaabo adag baa Soomaalidu xataa isku qabatay oo kamid ahayd qaabkii doorashada loo gelaa ma 4.5 ki baa lagu galayaa macaaqladii baa qofka soo xulaya maxaa ku raahdaa maxsa asxaab baa lagu galayaa Puntland oo kale waxay istaagtay meel adag iyadoo ku doonaysay 4.5 waa in laga gudbo oo xildhibaanada lagu qaybsado deegaan lagu qaybsado
si kasta oo Soomaalidu shir kasta oo la isugu imanayay waa lagu heshiinayay waana la isu soo jeediyay waana la isu tanaasulay xasan waa tanaasulay Puntland waa tanaasulay galmudug waa tanaasulay cid walba waa tanaasulay hal shir oo lagu kala kacay iyadoo aan heshiis la gaarin anigu ma garanayo shir walba heshiis baa la gaaray oo saxafadeed ba maxaa ku raadin soo saaray joint oo joint communique oo loo dheeyahay macna shirka Garowe waxa keenay markaan isweydiino maxaa keenay inuu fashil ku soo dhamaado dhinacyada isu yimi haday tahay dawladda federaalka oo iyo haday tahay maamul goboleedyada aan kala qaadno maamul goboleedyada wuxuu kala qaybsan yihiin galmudug iyo Jubbaland iyo Puntland oo isku aragti oo xulfa ah oo dawladda ka wada dadsan oo dawladda maxaa ku raadin hanaag iyo qaabka wuxuu wado aan maxaa ku raadin la dhacsanayn qaarkoodna ay ka tabanayaan maxaa ku raadin waxyaabo badan iyo Hirshabeelle iyo maamulka la yiraahdo Koonfur Galbeed oo iyagu dawladda maxaa ku raadin gacasaar la leh Koonfur Galbeed oo kale to doorashooyinkii ka dhacay muran badan baa ka dhashay dadka deegaanka cabashooyin badan bay ka sameeyeen mudaharaadyo badan oo maxaa ku raadin xataa qaarkood dhig ku daatay baa ka dhacay maxaa ku raadin madaxweynaha lafta gareena waxa loo arkay markii horeba inuu yahay nin gacan ku rimisa oo dawladdu ay meesha keensatay oo iyada maxaa ku raadin danaheedu u adeegaya Hirshabeelle waa isagu markii hore to nin dawladdu ku kambu ahaa laakiin waa la socotay mar dhexda uu la heshiiyay wuxuu ka helay ma garanayo marka labadaasi dhinaca dawladda u janjeeraan gudoomiyaha gobolka Banaadir nin la soo doortay iyo nin odayaal meesha keensadeen iyo nin ma aha waa nin digreeta ku yimi waa ku khasbay isagu inuu dawladda maxaa ku raadin la socdo haduu la socon waayo sida xaafadu qayliyo waa iska soco weeye digreetadiisa soo baxaysa waa ku khasban yahay iyo maxaa ku raadin dawladda oo ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wixii wasiiraha maxaa ku raadin la socdo markii shirka la imanayay labada dhinacba way kala aragti fogaayeen aad u kala fogaayeen aad u kala durugsanayeen galmudug iyo Jubbaland xaaladoodu iyagu waa fogeeyba Puntland hadda xasuusataan dhowr cisho ka hor inta shirka la qaban madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni shir jir ay qabtay dawladda federaalka waxyaabo badan ka tawday wuxuu sheegay dawladdu inay maxaa ku raadin xataa ku guul darastay lambar maxaa ku raadin kilomitir wadada Makka Mukarrama maxaa ku raadin magaalada Muqdisho inay ma kala sugto inaysan Soomaaliya waxdana u wadin in la fashilmay waxaas maxaa ku raadin akhriyay dawladda eeda culus buu soo jeediyay isla markaana wuxuu sheegay shirka in la sugu yimaado oo maxaa ku raadin maxaa ku raadin gogashiisa shirka dhigay marka waxay taas ku cadeynaysaa in labada dhinac aad u kala aragti duwanaayeen markii la soo yimid marka waxay ahayd iyadoo cid walba aysan tax ka saarnaa in la kala aragti duwan yahay aad loo kala fog yahay in la isu soo dhawaado iyadoo la eegayo maslaxada danta maamul goboleedyadu waxyaabaha ka tabanayaan maxaa ku raadin ay ka soo durkaan dawladdu ay ka soo durugto waliba qodobada maxaa ku raadin la isla dhaafi waayo adduunka habeen lagu ma dhameeyo dib loo dhigto qaarkood wixii maanta laga gaari karo la isla gorfayo laga heshiiyo oo la yiraahdo waxa maanta waa ka heshiin karnaa waxa kana ka heshiino maxaa ku raadin waxa kama heshiin karno Soomaha shir kale inuu cilaami ama Baydhabo isugu tagno ama Cadaadaan isugu tagno ama Dhuusamareeb isugu tagno ama Muqdisho ama Kismaayo meel aan isugu tagno marka meel dhexe aan maxaa ku raadin hadda aan isugu nimaano saas bay ku qumanayd oo waxa weeye horumar maxaa ku raadin la sameeyo waxa muuqanaysa in labadii dhinac aan la isu tanaasulin marka dawladdu waxa weeye waa mutacalliq maamul goboleedyaduna waa mudda maamul goboleedyadu waa cid wax tirsanaysa dawladdu wax ka tirsanaya dawladduna waa cid wax laga tirsanaya waa mutacalliq waxa la rabay marka dawladdu laba arrimood dartood in iyadu tanaasulka intaysa badan ay qaadato number 1 waxa weeye iyadu waa cid wax laga tirsanayo marka inay dadkii qanciso oo xataa waxyaabo kala tirsanaya haddii waxaan waxba ka jirin إيه محاكو رهلاي أي كقن عشوط راهو ورم شيطان كيسكنار مرعلا كددين أنو فرقلون لكم هينو وحوي وناقين وناقي دولدو إن شوتنا شو بعد بعدما يدو محاكو راه عدو حلقات السنة هاي تنلباد وحوي يقول ري دولدو إن أوتنا شو حوي دولدو يلا الدرك كمسؤولة دولدو يلا محاكو ما مالك سرية تاعتا مجرو وحي الفرماجو يخير إنه يقول ما سيدي محاكو راه هينك رتيق هينك أمارتي وبارقبك وجيله قامي هينك ووحول بولا صار إسكاقات وهين محاكنا ولقو جورو لقو برار إن هيكي لكن سيد القالمة بوب كوحدة هذا رتيجة مركب واحد رصاره ديدا يقل عرّي إن محاكنا قالمة بوب أكلتون نقدان ما هي وحلا غير ربي إن الدد هين النقدان وهو جاي كأي هيان أي كرر بيان مركب يجي اللي بدأ مسؤول درتين وح هاي الدولد إن تراشو وح مقنسة دولد إن جرابو ذي مركب أنا أركت ذي سيد لا تاي أنا الدولد أنا محاكنا هذا اللي بدأ قلنا وبيحنين وح إلى تاي دولدو
inay shirkii Garowe inuu fashilmo iyadu mas'uuliyadeeda leedahay labada arrimood dartood waxay ahayd inay iyagu wax badan ka tanaasulaan waa dalka dadkii loo doortay weeye shirkana ummadda Soomaaliyeed inuu fashilmo oo la yiraahdo maanta waa fashilmay ummadda Soomaaliyeed waxay ku tahay moral xumo niyadii baa dadka ka jabaysa maxaa ku dhahday dalalkii shisheeyay ee faragelinta inuu ku hayay haddii ahaan lahayd kuwa deriska haddii ahaan lahayd quwadaha dunida haddii ahaan lahayd hay'adaha qaramada midoobay oo kaleeto waxaanu siinay fursad ay ku soo farageliyaan maanta hadda waxa la ii soo sheegay Nairobi inuu ka socdo shirka Nairobi ka socda waxa weeye waxa isugu yimid sida la sheegayo safiiradii halka ku shirsanaa ee wadamada daneeya Soomaaliya marka waxay ka shirayaan waxa weeye maxaa xiga Soomaalidu waa kala tashatay waa maxaa ku tashan weyday waa kala dhaqaaqday marka inagu maxay samayn karnaa maxaa dhexdhexaad ku gal karnaa iyaga si isugu keeni karnaa marka wadamadii ba hadda waxay ku helayaan fursad aan wada hadalno de waa wada hadasheen waa heshiin weydeen marka hadda tashan weydeen aan idin talina meesha imanaysa sidii caadada ahayd waxa weeye ama Djibouti kaalay ama Addis Ababa kaalay ama Nairobi kaalay gogosha ku xigtana meel iga qora waxa weeye Soomaalida saatan lagu daymiyo waa la isu keenaya gaala ka dhex shaqaysanaysa wadamada dariska iyo sheeya ka dhex faa'iidiya waa la isu keenaya waliba sanduula la isu keenaya iyadoo kana warqad loo diray oo la yiri shirka kaalay kana warqad loo diray oo la yiri shirka kaalay waxa la isugu keenayana waa waxa arki doontaan waxay u badan tahay inay Addis Ababa ama Nairobi noqoto sababtoo ah maamul goboleedyadan ogahay rag iyo Xaaf iyo Axmed Madoobe aan arkay Muqdisho ma yeelayaan in lagu xireeyo amsiin madaxda maxaa ku raadayay dawladda federaalka waxa weeye maamul goboleedyadaas aad uga soo taagan yihiin marka waa arki doontaan mar ay noqotoba si dhaqso ah dhawaan la isugu yeelaya hadda marka meesha la taagan yahay Garowe waa lagu kala dhaqaaqay maxaa xiga xagee Soomaali aadaysa anigu soo filayo marka arintaas sheeyaha oo hadda waxyaabaha qorsheynayaan xagga iska dhigno Jubbaland doorasho ka soo socota dawladda federaalka waxay isku daysaa inay doorashada Jubbaland sugto oo waliba galaangal ku yeelato oo nin qoyan biyo iskama dhowreen si xoog leh u gasho maxaa ku dhahday dhaqaale ciidan siyaasad wax walba ay ku gali karto ku gasho oo ay halkaas maxaa ku dhahday ka shaqeyso sidii Axmed Madoobe uga takhalusi lahayd oo uu iman lahaa ugu yaraan nim aan iyaga khatar u arkin oo la jaanqaadi kara oo la shaqeyn kara uu iman lahaa marka waxaynu galeynaa muddo 2 bilood ilaa 3 bilood oo xaaladda maxaa ku dhahday dawladdu afkeeda haysto laakiin hoosta ka shaqeysto idina aysan soo iman idaacadaha oo la iska maxaa ku dhahday la iska eedeeyo la iska dhaleeceeyo haddii marka dawladda taas u hirgasho oo maxaa ku dhahday Jubbaland oo ka soo baxo qof maxaa ku dhahday ka duwan Axmed Madoobe oo qof iyaga rabeen meesha lagu soo doorto waxa way dawladdu waa sidii rabtay waa la soo iman karaa mar kale haddii laakiin Axmed Madoobe soo noqdo dawladda laba u furmaysa mid waxa weeye in Axmed Madoobe aqbasho oo waxyaabaha uu tabanayo maxaa ku dhahday ay ka raali geliso oo ay ku khasbanaato inay isaga la shaqeyso iyo inay isagii maxaa ku dhahday doorashadiisiiba muran geliso oo tiraahdo doorashadaas uu ninkaas ku soo baxay mid sharci daraabe ahayd oo maxaa ku dhahday halka xiriirku maxaa ku kala go'o arinta galmudugna sidaas la mid ah dawladdu doonaysa 2 bilood gudahood bay hadda kordheen doorasho lagu qabanaya bil wax ka yar baharsan dawladdu waxay isku dayaysaa inay xoog maxaa ku dhahday cadaado ama galmudug meel kasta ahaatee doorasho ay halka uga qabato madaxweynaha halka maxaa ku dhahday uu ka soo baxo haddii taas uu hurgeli weydana sida Axmed Madoobe uu khasbanaan doonto inay ula shaqeyso bay Axmed Xaafna waxay uu khasbanaan doontaa inay ula shaqeyso marka almuhim xaaladdu waa inaha weeye ummadda Soomaaliyeed waxa ka Ilaahay idinkii waxa ka rajeynaynaa inuu maxaa ku dhahday qulubtooda madaxda halka ku shirsan maxaa ku dhahday burcad Soomaaliyeed oo isu soo dhawaadaan oo waxyaabaha danta gaarka ah oo ay eeganayaan oo tii guud ka mashquuleen Ilaahay ka masixo oo tan guud Ilaahay u furo oo Ilaahay taasoo sababtoo marka tan guud hagaagto baa tan gaarka ay hagaagaysaa inaga dan gaar oo qof eegto waa wax halka aan dhigay weey laakiin dan guud baan u baahanahay waxa halka barnaamijkan ka soo jeedinayay anigu Ashiina Culim sharxi ku reebay oo idinku dhaafay tan inta barnaamij kala mid ah ku kulmi doono assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh